waxaan maanta halkan ku qabanaynaa saxaafadeed kooban oo ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal. Saxaafadeedkani waxa uu u dhigan yahay guddiga hirgelinta federaalka gudoomiye Muuse Wafdi oo hogaaminayo oo magaalada Baydhabo yimid una yimid xalinta kuraas buuq ka jiray. waxa saxaafadeedkan uu ku saleysan yahay asal ahaan maanta waxaan la kulanay odayaashii dhaqanka ee kuraasi buuq ka taagnaa, bulshadii rayidka, maamulka qaybo kamida, baaritaan aan ku sameynay guddiga seed dokumentiyada ay gacanta ku hayeen. waxaa noo soo baxday kursiga Hob 103 iyo kursiga Hob 204 waa 103 iyo 204 in ay fasaxan yihiin wixii hadda ka dambeeya oo wax buuq u ka taagnayn, halka ay weli hakisan yahay kursiga 154 oo doorashadiisa dib loogu celin doono. ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaa in wixii hadda ka dambeeya golaha shacabka ee South West inay toos u tagi doonaan goobta dhaarta kadib markay qaataan shahaadooyinka xildhibaannimada. waxaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan South West waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee noo soo dhaweeyeen. waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu abaaraha iyo colaadaha ka dulqaado, ummadda Soomaaliyeedna ay hore u socoto, dawlad macnalana ay noo timaado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.